سفارة الصومالية ودن كينيا كارهان مقالة نيروبي waxaan fadhinaa xafiiska konsulka cali begadi maanta waxaan u imaanay kiisaska horeeto macnaha gruubka hadda soo geliyay maalmahan insha allah ku guuleysanay inkastoo markaa hadda ugu dambeysay 2 qof naga dhinteen odayga safarta ku dhacday iyo gabadhii lacagta maalmaha aroorinayn oo aydan kansarka ku dhacay aydan waxay dhimatay adiga 5 maalmood ka hor kiiska hadda noo dhimana macnaha waa u imaanay wadankan Kenya habeen horaan soo galay waxay tahay gabadhii aan soo gudbinay ayaan horeeto fartuun oo xubnaheeda aan ku tilmaamnay macnaha xoogaa aan la fahmi karin macnaha rag iyo dumar waxay tahay marka processkii si hawsheeda u galnay waxaan u imaanay safaaradda waxaan maanta u imaanay konsulka cali begadi magaalada Nairobi waxaan ka codsanay arrimahan in wuxuu naga caawin karo naga caawiyo alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta wuxuu noo sameeyay ballanqaadkaas oo ah inuu naga caawiyo dhinaca baasaboorka marka dartan waxaan rabaa inaan konsulka usoo dhaweeyo macnaha ishay barnaamijkeena sidii wuxuu mujtamaca usoo gudbin lahaa usoo dhaweeyo konsulka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز هذا ما سنتين ولكن كاتي وحنا لا يعزنا الله كاسيو. قف لنا الصوماليات ما أنت سكوت قامة يدك الصوماليات اللي باتيسن أنا يمكن عارف ما لما يستلني وهولا إنه مركز تكعن قبته إلى يأتي حسنا الله كاسيو كلنا هاي. كنتي ما أنت يشتري قف صوماليات حبي كترن كأيات طبعا. لما يقالون رجل دمر وحوي هاي وسمعت عنه جناية عينه حتى حاول عافمات مركا إلهي سجن أو في هوشي سي قبل يولاد السي وأنا ويتيني وحام قرينا باسبور كإنه رجل دمر وحوي هاي مركو حيلا أنا قد مقع عام وتقول لي مقع دمر واي لكن وحام أنا قد ما بقرا معي مركا إلهي هنا أو في هوشي ده إلهي مارت عافمات إلهي مالها وصار waxaan ku balanay in passportkii aan u sameeyno maalinta Britania aan balansan hadii ilaahay insha Allah taala wixii kale oo anaga kraankeena ah qaabkii ay halkan ugu bixinahay ilaa ay ka baxayso inaan anaga wax alaal wixii safaarad ahaan naga aadan inaan u qabano walaalkii mar labaad waxaan ugu hambalyeynaa ilaahay inuu adna ajri xasan kaasiyo oo fuliyo waxa uu sameeyay wanaageeda ayaa ilaahay ka abaalmarinaya ilaahay meel kale kaaga abaalmarinaya kulenahay waxaa kaloo loo baahan yahay ummad Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay qof ninkan walaalkeena qeybta ah taasna ku jiro ilaahay xasan Allah kasiyo dad badan oo intii waxa jira Soomaaliyeed maanta baadiyaha ku nool oo aanan aqoonin meel xataa ay aadaan dhakhtarna aan awoodi karin heli karin dhaqaale ama xitaa xiriirka xataa meelahaas lagu tagi lahaa xitaa aanan haynin markii ninkii isku mashquuliyay xiriir sameeyay qof Soomaaliyeed waxa ay sheekada la tabaaqan ku fikiraa marka walaalayaal sida walaalkeena kale dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in aqoonta iyo baxnimada dadka ay leeyihiin dadkooda Soomaaliyeed looga faa'iideeyo wad mahadsantiin mahadsantahay على هذه إلى أجر كاسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا مسؤولين دولة الصومالية كاملة وحن جوجا سفارة الصومالية حنوم أحد علمية على الدولة قصول الصومالية وحقل أمها تعلني أولاد كيف سكرتاي أو يقرب استاجي ما تستوى هذا بيدكم هاد علني وحنا أنا حنون كي الحمد لله رب العالمين أول إلهي يصبريا إنه إلهي عافيه وحقير طبعا إلهي يسهله وحقل جبته حنون كي وحنا أنا وحلي وشيء حبلت الترك ركع وحالي ده هاي حبلت الترك ركع ليه هاي وحد بحث تاي أوبريشن دل كان لو ما قلي كره بيت عيال وقال كره واحدة ودرك يعني أفريقيا على كل هذا ماله مرة بعد إمر سبحات وحوم هاد أنا دولة الصومالية وما أنت يعني كفر حسنا أنا دحت جوجو سفارة الصومالية الحمد لله ضد كيجا آد بيدكم هاد ألينيا حالها هاي أمة الصومالية وإلهي وحسيي ومحلة المحسنين تاعه وحمدونيا إني عاويان ويقرب استاغان إن شاء الله تعالى إلهي كسكو أيها محالي جرق عنده ذي الحمد لله